بسم الله الرحمن الرحيم waxaan mar dhawaato dhageystay aad iyo aad iga nixiyay dad kaliyaha loo safeeyo ka cabanaya cusbitaalka Hargeysa waa dad duruuf rasmi ah oo noloshooda taabanaysa ka cabanaya dadkaan iska rab taagno codkooda kor iyo hoos baynu codkeena ugu darsano inuu madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland ugu baaqno inuu dadka wax u qabto in dad yoga kale faraha badan ee dhibaatooyinka caafimaad ee dalka ka haystaan dhibaatooyinka bulshada ee dalka ka haystaan isagu madaxweyne uu yahay waajib ka saaran yahay wax ka qabtona madaxweynaha inuu xasuusino waxa runtii aad iyo aad iga yaabiyay cusbitaalka Hargeysa uu ka soo horjeedaa madaxtooyada xafiiska madaxweynaha wuxuu la sakadii wada yar u dhaxaysa baarlamaanka Jamhuuriyadda Soomaaliland labada qalb wakiilada iyo guudida waxa ku dhagan wasaaradda caafimaadka waxaan wax weyn u jirin maxkamadda sare dhammaan dadkii awood waxa ku dhagan wasaaradda caafimaadka waxa dhammaan dadkii awoodda iska lahaa dalka ee gacantiisa ku jirtay cusbitaalka agtiisa joogan mirir iyo wax ka yar daqiiqad iyo wax ka yar ayuu jiraa cusbitaalka haddii cusbitaalka inta idin jiray laga cabanayo sidee ay tahay duruufta cusbitaalada ka fog ee Seylac cusbitaalkeeda duruuftooda iyo caafimaadkooda waa sida ceergaabo iyo dhulka hoos yimaada waa sida Baki waa sida Dhoqoshay waa sida dhulka idinka fog sidee uu noqonayaa haddii cusbitaalkii la darisaha ay umadu ka cabanayso adeegyadii wax loogu qaban lahaa madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland dadka loo doortay waa dadkaas dadka doortay waa dadka waxay u doorteen waa arrimahaas caafimaadkii u doorteen waxbarashada u doorteen shaqo abuurka u doorteen haddii kuwa waxba laga qaban waayo laga dhiga adeego la dhageysan waayo ha iska hadlaan la yiraaho cabashadooda waxba laga soo qaadi waayo horta waa mas'uuliyadii dadka loo doortay waxba laga qaban waayo waana iman doontaa maalinta ay noqotaba inay dadkaasi itaalka ay leeyihiin oo codka ah ay ku aargoostaan oo ay ku baxaan laakiin madaxweynaha ka codsan lahaa waxaan u soo jeedin lahaa cid u dhageysta haddii jirtaan aan ka codsan lahaa inay kala hadlaan inuu dadka danyarta iyo dadka masaakiinta ah dadku u badan yahay inuu dhageysto inay dawladdu ku dhiirato oo ku adadkaato waxyaabaha qaarkood wixii dadkani u baahnaa caafimaadka waxbarashada shaqo abuurka ahaan ay dhageysan weydo danta Jamhuuriyadda Soomaaliland kuma jirto madaxweynaha kuma jirto mar labaad aan ku celiyo cid waliba haddii codka kor u oran karto iyo haddii hoos u oran kartaba in arrimaha caafimaadka dhibaatada dalka ka jirta in madaxweynaha maqashino in isku dayno in la gaarsiiyo in la madaxweyne ilaahay ku abuurtay adigoo ka baqaya dadka qofka markuu bukoodo oo markuu ugu nugul yahay bal dadka ka wardo